barnaamijka waxbaro ee xigmad iyo sheeko. barnaamijka waxbaro ee xigmad iyo sheeko waxaan uga hadli doonaa ciwaanka cufnaan. marka aan wada miisaanno cad bir iyo cad alwaax oo isku cabira, waxaan ogaanaynaa in cadka birta uu ka culays badan yahay cadka alwaaxa. maxay kula tahay sababtu? dabcan waa wax muuqdo oo aad fahmi karto in baaxadda shayga mugga uu mar walba saameyn ku leeyahay culayska cufka shayga. mar walba aan aragno walax weyn oo baaxad leh, waxaan malaawaalanaa inuu jiro culays badan, laakiin taasi marmarka qaar ma dhacdo. haddaba waxaan isweydiinaynaa, waa maxay waxaan ahayn baaxadda ama mugga shayga ee saameynta ku leh cufka ama culayska shayga? waxaan ahayn baaxadda ama mugga balse saameynta ku leh culayska waa cufnaanta. cufnaanta waa inta shay molecuuladiisa ay isku urursan yihiin ama isku dhow yihiin. laba shay waxa ay yeelan karaan culays ama cuf isku mid marka ay leeyihiin cufnaan iyo baaxad ama mug isku mid hadda ma fahantay sababta birta ay uga culays badan tahay alwaaxa? haddaba haddaad fahantay sababta, jawaabtaada hoos noogu reeb adoo af Soomaali adeegsanaya. mahadsanid daawade. fadlan like saar page-kan, hana hilmaamin inaad share dhahdo. barnaamijka waxbaro ee xigmad iyo sheeko. barnaamijka waxbaro